وحوي هذي إلهي نص قروا بروا صور بورك هذو تجي وما أنت نفس صحي يا وودي سنة يعني وأنا ودي سنة إن شاء الله عدوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى السلام يا دمان الصحابة كلنا مبارك في الشارع ملك استشفتان سود وهذا إن شاء الله ما أنت وحنا دوبي دونا السؤال كواسوا ويديني يورعلين قفلي وكذا جوابي دونا إن شاء الله في ركيسة نلص على صاحب يارد تقعد تاي channel خاص بسكرام نصار لايك نشر دعنا وسياد وما سنتي سود وهذا بلا بيا مقعد أي مقعد على محمد سلمان إسماعيل إن مقعد رجع قال قبل كتقدر إن كلغن aad ma sentay sidaad aragtaa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu safar aado dalka Mareykanka waxaan arkaa taa madaxweynuhu Muuse Biixi uu tagay safarka dalka Mareykanka uu tagay qadiyada Soomaaliland horumarkeeda isagoo doodkay email mariteeda waa jira qaaradaha adduunka caalamka jira Mareykanka ka mid tahay sida dawladaha adduunka ka jira ay ka mid tahay Soomaaliland waa dal aad loo yaqaano waa dal adduunka caalamka magac iyo muuqaal ku leh laakiin waxa meel ka dhaca arrimaha laga sheegay la leeyay in mucaaradda madaxweynihii la kulmay oo calamo iyo hoos eriyay saan ku leey muuqaal badan taan ku arkay arrintaasi waxay ila noqotay fikrad ahaan markaan ka dhiibo mid aad iyo aad annaga meel ka dhaca dee nagu noqotay haddanahay reer Somaliland aad ma sentay soo dhawaado ku bilaabay magaca waa dhawahay magaca waxa la baasha Ismaan Diiri way baasha sidaad aragtaa in madaxweynaha dalka uu ku tago safar dalka Mareykanka waxaan u arkaa si fiican oo Soomaaliland u fiican oo qarannimada u fiican oo dalkeena u fiican oo dadkeena u fiican baan u arkaa waayo inagu intiraaf ma lihin marka madaxweynaha inuu intiraaf inoo raadiyo hadii bidinka daliyahay oo uu noo soo hantago aad iyo aad baan ayay ugu cantay dalkeena iyo dadnimadeena iyo dawladnimadeena iyo Soomaaliland dar ahaanteena aad iyo thanks aad ma sentay soo dhawaada adoo ku bilaabay magaca Cabdaan Gulad baleeyada Cabdaan Gulad sidaad aragtaa in madaxweynaha Somaliland uu safar ku tago dalka Mareykanka waxa weeyaan hadii Ilaahay noo soo qoro barwa soor boorka haduu tagay oo maanta la fasaxay ya waa wadi iibsanahay anu waan wadi iibsanahay insha Allah cadaweenna waa ku naxayaan kayna jecelna waa ku farxayaa waxaan leeyahay guul wanaagsan baan ka rajeynayaa insha Allah waxaan kala rajeynayaa haddii maanta inta aynu gaadhnay inuu kordhinayna insha Allah bismillaah kariim aad ma sentay soo dhawaado ku bilaabay magacaygu waa Cabdi Fataax oo dhawahay Cabdi Fataax sidaad aragtaa in madaxweynaha Somaliland uu Mareykan wafti uu ku tago wallaahi waxaan u arkaa guul weyn oo Somaliland gaadhay baan u arkaa intii ay jirtayba waa guul weyn weeyay waan u hambalyeynaa in qarankeenu heerka gaadho oo caalamkuna la soo eegaan kulli waan laga warqabay waan dimxay tolna la ictiraafkuna iska imanaya aad ma sentay soo dhawaado ku bilaabay magacaygu waa Yaasiin Bulshaawi aad baan u dhawahay aad ma haystaan way sidaad aragtaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu safar ku tago dalka Mareykanka wallaahi waxaan u arkaa safar taariikhi ah oo ku soo beegmay xilligii loo baahnaa waayo safarkan waxa uu waxyaabo badan buu Somaliland u soo kordhinaya xagga taariikh istaraatiiji ahaan xagga siyaasad ahaan xagga geeska Afrika waayo Somaliland iyo Mareykanka waxa ka dhaxayn kara dhinacyo badan taabanaysa sababtoo Mareykanku waa tan laga qabsaday dhinacii geeska Afrika saameynta uu ku lahaa Shiinaha iyo Ruushku ay saameyn weyn ku siiyeen taa bedelkeeda iyada Djibouti wadankii laga qabsaday anigu waxaan u arkaa fursad weyn oo Mareykanku uu Somaliland ku iman karo saldhigna uga samaysan karo siyaasadeena iyo qadiyadeena iyo waxaan ku iibsan karno oo hadduu iminka saldhig dabta inuu weydiistaba dee anaguna qadiyadeena aynu hor dhigno dhahno war maxaan annagana noo nafa annagana dana aqoonso isweedarsano dee wax isdhaafsano taas waxaan u arkaa guul weyn oo xilligii loo baahnaa timi aad ma sentay soo dhawaado ku bilaabay magaca Saciid Cali Abdulwahab way soo aragtaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu safar ku tago dalka Mareykanka walaal madaxweynuhu aad iyo aad buu mahadsan yahay الدراف نو شقي سمالة إنت صوم يا كحنا قصدي الدراف وين بنقول
madaxweyneyda Mareykanka maanta ka duulay South Africa ka duulay maanta dibadaha ka u duulay ictiraaf weyn buu soo sida Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad buu u mahadsan yahay ictiraafka soo socda dadweynuhu qaar baa salade ictiraaf ma jiree ee wasi kale wasida ma aha Soomaaliya maanta horumar baa gaadhay ما شاء الله آدي أدبا ومصرية تفيق قرك السومالي آدي أدبا الله وسلامية ولا المحوية وكره من حويلات مرد السومالي مركو تلقى أصقو أدوري الدراف بو سوسيدي شعب كدلويلها رئيس السومالي يقو أقاداي النية دقلية تلقوا بدل كده عيو hadduu alla ka dhigo soo dhawaado ku bilaabay magaca oo dhawahay walaal way soo aragtaa in madaxweynaha Soomaaliland uu safar ku tago dalka Mareykanka bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam magacaygu marka hore waxa weeye Axmed Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Burco madaxweynuhu dee horta waxa weeyaan safarkiisu dee safaradii hore walba dawladda qaban jiray kaba duwana waxaan la doonayaa ilaa ictiraaf iyo waxaana ictiraaf dee Ilaahay baa inoo haya إلهي كسر كون النجا صاينا مدحوين لو ما هي عيد كلام لو ما يصير النجا صاير سوالي دم بصايا بركة وحلاية والاعتراف كان لنا دت كنا أبارها كل عين يا وحاسي لو هذا لها يصير وح نقول صبح لهاي أبارها يا وحمر لو غير يصير لها فلقوا هلا قبته مرة على مرة حالة بتاعن تاني ممكن تاعن لقى هلا ها وده واحد صبح ودك واحد صبح اعتراف إلهي كسر كون النجا صاينا بلا بين لو ما هي بقى أنا مش سامع رقدي أدول ما سنس سورة وساعة بدك بلا ما مقعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرتدمنتم السلام عليكم مقعد وإسماعيل ياسين إبراهيم وإسماعيل وإنسان ورتين مدحونا جمهورية الصوماليلاند موسى بيحي عبدي وسافروا تقدر أمريكا ورتوا سوين أكسن اعتراف نوضوني مدحوينه كده داليا حكومتنا وحلقنا الناس طانا حكومة ولا بوحي كنا الناس سنتا سينايو وحكومة ما مصنتها دبلوماتي داريو لو حكومة مسيا ديمقراطي يوم مدحوينيا شكوريبا waxay ku maamusnaan doontaa oo ku magacan doontaa dawladda Musabbixi deeqla ka dhigo dawladii ictiraaf raadinta waxa kale oo sharaf noo aan arkay bulshada ka arkayay qaar calaamad Soomaaliya laga yaacay ama madaxweynaha Soomaaliya doona waa ka hadlay taas anaga sharaf inoo tahay waan leeyahay taasi annaga sharaf inoo tahay ama buuqa ama qeyrqeyriyaan leeyahay Soomaaliya madaxweynaha aad baan ugu hambalyeeynaa maadaama uu halka isagoo ictiraaf ka wado waxaan rajayn doonaa inuu dalal badan uu ku tagi doono socdaal uu ku tagi doono hadii Allah uu bedelo ogolaado aad baa mahadsantahay way soo dhawaado ku bilaabay magaca Maxamed Cabdi Xuseen way Maxamed Cabdi Xuseen soo aragtaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu safar u tago dalka Mareykanka waxaan u arkaa guul u soo hoytay Soomaaliland waxaan ku qaaday koobka galaaska uu ku tagay Mareykanka waana ku hambalyeynaya aad baa mahadsantahay soo dhawaado ku bilaabay magaca waa dhawaay walaal magacaygu waa Mahdi Maxamed Ismaaciil maada soo aragtaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu safar ku tago dalka Mareykanka walaal si waxaan arkaa waana soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waan ku garab istaagna waxaan rajaynayaa guul inuu ka soo hooyo shirka iyo uu ku maqan yahay aad baa mahadsantihiin dhammaan asxaabta ku xidhan baarada official maanta insha Allah intaasaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka la socda saaxiibayaal haddaad ku cusubtahay channelka subscribe noo saar